waxaa ka dhacay dil iyo maaragtay dhibaatooyin badan oo loo geystay iyo boob dukaankan aan dhex taagannahay wuxuu ku yaallaa xaafadda la yidhahdo New Brighton Red Location qayb la yidhahdo ku yaalla halkan waxaa lagu dilay walaal Soomaaliyeed oo magaciisa la yidhahdo Guuleed oo dukaanka ka shaqaynayay sidoo kale waxay doonayeen oo ilaahay badbaadiyey ninkii dukaanka iska lahaa inay dilaan bay doonayeen laakiin ilaahay baa badbaadiyey oo wuu gabaday meel buu ku dhuntay waxaa intaa ka dhacday halkaa kadib dukaankii way rarteen siday booliiska noo sheegeen laba gaari bay soo afduubeen ay ku rarteen gaariga wixii dukaanka wixii yaallay qaybtii kalena waxaa boobay dadkii shacabkii meelaha ka dhawaa markay iyaga tageen wiil bay dileen ninkii dukaanka lahana ilaahay baa badbaadiyey xabaday ku rideen dhowr ah laakiin ilaahay baa badbaadiyey xabadii kumaysan dhicin boobna meeshii uu ka dhacay dukaankii way rarteen waa dhacdan lagu cusub dadka waa la dili jiray waa la dhici jiray laakiin dukaan dhan in la rarto runtii waxay nagu tahay arrin uguba dhacdooyinkan way soo noqnoqdeen ummadda Soomaaliyeedna way ku soo laalaabteen in badan kan ma ahan muddo badan bay waxaan dhacayeen oo dhowr sano ah waan dhahno decades macnaha tobannaan sano ayay dhacayeen waxaan dhibkan uu ku tagnaa Soomaalida waayahan dambe waan ka raysanay laakiin hadda way soo noqdeen baad moodaa dhici baa batay dilkii baa batay runtii ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinaynaa inay taxadarka muujiyaan dawladda South Africana waxa fariintan u faray waxay tahay markay sameeyaan baaritaanada inay halkaa ku ekaynin ee dadkii falka geystay ay soo bandhigaan la soo qabto maxkamad la soo saaro sharcigana la keeno in badan baa waxaa dhacdo in la qoro cases dadkii meydkiina la qaado laakiin wax aan laga qaban dawladdan cusub ee hadda coalitionka isku magacaawday dawladda midnimo qaran waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ugu sarreeyo iyo booliiska iyo detectiveyada iyo dhammaan dawladda qaybaheeda kala duwan inay faldambiyeedkan ku soo noqnoqday ummadda Soomaaliyeed ee dilkeeda la caadaystay habeen iyo maalin la dilayo oo cid isdaba raacays aysan jirin inay maaragtay wax ka qabtaan sidoo kale waxaan halkan fariin uga dirayaa UN-ka iyo cid kastoo maaragtay dadka qaxootiyada iyo immigrant-iga shaqo ku leh runtii waxaan dhihi lahaa dawladda in lagu dabagalo ay u baahan tahay dhacdooyinkan dhacayo inay wax ka qabato sidoo kale human rights lawyerska iyo refugee rights lawyerska fariintaan u diraya waxay tahay dhacdooyinka noocan oo kale in la record gareeyo la dabagalo dawladda waxna laga qabto waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan u tacsiyeynayaa ehelkii uu ka tagay walaalkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto iyagana samir iyo iimaan allah ka siiyo waxaan maqlayay waalidkiisa inuu degan yahay qaxootiga Kenya allah u naxariisto waalidow wiilkiinii uu dhintay cadowka xaq daran baa dilay gacan cadow buu ku baxay ilaahay hoygiisa jannaha ka dhigo ummadda Soomaaliyeedna waa uga tacsiyeyna waa tacsiyo tiiraanyale oo aad u murugoonayna dhammaantayada ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay taxadar hala muujiyo meeshaan caawa taaganahay waa locationkii walaalkeena lagu dilay ninkii dukaankan lahaana dhowr jeer lagu dhaawacay in la dilo la rabay 9 xabaa ku dhacday haddana wuu socdaa wuu nool yahay dhowr jeer hore lagu dhaawacay booliiska hadda caawa dambi baarayaasha halkan noogu yimid waxay yiraahdeen ninka dukaankan iskale waa nin nasiib badan intaasoo jeer baa la damcay in la dilo laakiin waa nin nasiib badan ilaa hadda wuu nool yahay ilaahay maaragtay isagana ha xifdiyo dhibaatadii ku dhacday hantidii laga boobana allah u booga dhayo wiilkii dhintay naga dhintayna naga wada baxayna allah u naxariisto